السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام دمان أصحابت ميل والبوجوكتين سو دوادا ما أنتو حان إذن كذا شاكينا يا شاكو آد أجهلي دونتين هدو إلهي يرهدو أن هدي أي مصيبة كوجو دعدو أما وحدا فيلنين الله كلنتو متى يقف إلهي ونقضو أما إلهي كشكري وحكست إنه أسجو أودو متى هاي قف أذكارت بتصدو أو أذكارت أفكك هيستمر والبو متى هاي قف قرآنك وقت والبدأ إمتى أو أخرستو هدي إنتاس أتهاي إلهي وحشرك تصب معي وادني كبد باديسا هدو إلهي إن شاء الله تعالى أن برسو حنكاga sheekeynaya sheekadan wadaadkan ku dhacday waxa dhacday hadda ka hor wadaad ayaa wuxuu rabay inuu u safro magaalada waagaas ma jirin baawur lagu safro laakiin waxa lagu safri jiray awrta wadaadkaasi uu soo baxay habeenkii markuu soo baxana wuxuu akhristay quraan fara badan oo uu isaga isku xijaabayo wuxuu afka ku haystay markuu albaabka ka soo baxay adkaartu afka ku haystay wuxuu akhrinayo quraan wuxuuna soo rartay baawurkiisii oo rati ahay ratigii markuu soo rartay wuxuu soo maray dhul aafa oo aan qof bini'aadmi aysan ku noolaynin wuxuuna soo aaday magaaladii oo u safrayay balse intaas marna meel ma fiirinin oo wuxuu akhrinayaa quraanka oo afka ku hayay oo mar walba wuxuu ahay qof quraanka afka ku haya oo ilaahay baryadiisa u taagan in wadadana ilaahay u sakharo asagana oosan wax sharci oosan ilaahay tusin waa soo baxay oo wuxuu soo maray wadada asagoo maalmo badan soo socday meel cidlaana socdo waa dareemi kartaa markaad meel cidlaa socoto qalbigaaga wixii geli karo because wax walba u fududahay laakiin wadaadkaasi wuxuu wax walba ka xigsaday in ilaahay ka xijaabo wuxuu wax walba ka xigsaday oo iskaga dhigay inuu quraanka aad u akhriyo adkaartana mar walba uu afka ku hayo oo soo baxay oo asagoo bariyo soo socday waxa dhacday waxa ku soo dhacay nin rabo asaguna wadaadka u sheegay inuu safar yahay wadaadkii aad buu u farxay oo wuxuu isiri hadii aad heshay qof wadada kula maro oo kula safro waa wax aad u fiican wasa soo raaceen oo wadaadkii ninka way iswareysteen ninku wuxuu u sheegay inuu asagana magaalada u socdo oo meeshii oo wadaadka rabo oo u socdo wadaadkina aad buu u farxay oo wadada isla soo mareen laakiin ninkaanu ma ahayn ujeedadiisa inuu asaga oo sameeyo safar oo u socdo laakiin wuxuu rabay inuu wadaadkan furto oo wuxuu haystana oo ka furto maxaa la dhigi jiray awrtana oo ka wato oo wuxuu ahay nin sidaas maalin walba ku qaraabto oo qofkii wadada soo maraba waxay haystana ka qaato xoolahana ka qaato oo shaqadiisaba waxay tahay inuu dadka wadada u galo ilaahay ha naga najeeyo wax walba sidaas nagu sameeynayo anagu ma ogin laakiin ilaahay ha naga xijaabo ilaahayna ha naga amaansado way is soo raaceen ninkii waxa la yimid meeshuu dadka ku furo jiray oo dadkana ku dili jiray wuxuu u sheegay wadaadkii inuusan safar ahayn oo rabo inuu asaga furto oo na dilo oo maxal dhigi jiray ratigana uu ka qaato wadaadkii wuxuu yiri walaalow iga leexo anigu waxaan ahay qof islaama waxaan ahay qof safara waxaan ahay qof caruur iyo hooyo iyo aabba ka soo tagay ha idilin laakiin xoolahaaga iska qaado wadninka wuu diiday oo wuxuu yiri waa inaan ku dilo oo adiga aan ku dilo xoolahaagana aan qaato wadaadkii wuu fikiray oo wuxuu yiri ma ii ogolaanaysaa inaan salaada ilaahay aan dukado waa ku ogolaanaya hor rab oo yiri inta doonto duko oo salaada wadaadkii salaada uu istaagay oo wuxuu u istaagay salaadii ilaahay iyo duco iyo quraan oo isku daray sujuudona wuxuu ilaahay ku bariyay inuu ninkan ilaahay ka xijaabo oo ilaahay ka celiyo okay ninkii salaadii markuu sidaas u salaama naqsaday oo rabo inuu dilo ninkaanuna oo midida ku dilay gacanta ku haysto wuxuu arkay ninkii oo dhinac u sii jaleecayo wuu fiiriyay ninkii wuuba sii jaleecayo ratigiisii oo iska watay meeshiisii oo uga tagay wuxuuna tagay magaaladii oo u socday wuxuu ka sheekeeyay qisadan inay ku dhacday mar walbana oo asagu ilaahay baryay in ilaahay ka badbaadiyo hadii aad jeceshahay in ilaahay wax masiibaha walba oo ka badbaadiyo u badnaa dhanka ilaahay oo quraanka akhriso adkaarta afka ku hay waxaan xasuustaa hadda ka hor waxaan ahaynay 20 qof aniga kula hadlayo 20 qof aan ahaynay 20 keena qof waxaan saarnayna gaari waxaan ku soo dhacnay meel la isku xabadaynayo ilaahay amarkiis aniga xabada igu dhacday gabar igu dhaganayna xabada ku dhacday wiil kalena xabada ku dhacday
xabadii way baawurkii soo wada dhex gashay because waxaan soo dhex galnay laba qofood oo yacni laba ciidan oo isxabadaynayo markaan soo dhex galnay aniga ogaalaan lahay ogaalkayga aada u fiicnaay waxa igu xigtay gabadhii way ugu soo dul dhacday dhinaca kaleetoodna waxaa iga jooga wiilkii wuxuu afka la qabsaday subxaan allah mar walba markaan soo xasuusto waa ka naxaa wuxuu afka la qabsada wuu cabaada wuu qayliyey gabadhii ashhaadkii ku dhigtay sidoo kale anigana ashhaadkii ku dhigay because nafta hadday imaado oo nafta loo imaado waxaad xasuusanaysaa in ilaahay aad u naqato laakiin waxaa fiican mar walba inaad xasuusato in ilaahay u naqato mar walba markaan wiilkaas aan arko wallaahi waxaan ku dhahaa afkaaga ku baday inaad ilaahay barido mar walba markaan arko waxaan u sheegaa afkaaga ku baday inaad ilaahay barido because wixii afkaaga ku badan oo ilaahay kugu aadinaya maalintaad masiibo la kulanto waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.